بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته soo dhawaada saaxiibayaal mar kale ka waran saaxiib adigoo ka shaqeynaya bangi ka mid ah bangiyada haddii aad ku war hesho in bangigan lacag lagala baxay waliba in ka badan 12,000 oo goor waqtiga lagula baxayna lacagtaasna uu ahaa 2 saacadood oo keliya dhacdadan cajiibka ah waxaynu kaga hadli doonaa muuqaalkeena maanta ee marka hore muuqaalka like saar mahadsanid dhacdadani waxay dhacday sanadkii 2018 waxayna ka dhacday dalka India gaar ahaan gobolka Maharashtra caasimadiisa Bani bangiga Cosmos Cooperative ayaa koox dhalinyaro ah u doortay inay lacagaha ka soo qaadaan bangiga qaybtiisa ATM-yada ATM-ku waa meel lagala baxo lacagta cadaanka ah sida dollarka oo kale balse dhab ahaantii arrinkan wuu ku sirmay maamulihii bangigaasi weerarka lagu dhacay bangiganna wuxuu dhacay bishii Agosto 2018 galab sabti ayaa shaqaalihii bangigaasi hal mar waxay ku war heleen fariimaha digniinta fariimahan oo ka imanayay shirkadda kaadhar bixinta Visa ee Mareykanka fariimahan ayaa ka digayay dalabaadyo kumanaan gaaraya oo lacag cadaan ah lagala baxayo ATM-yada daawada ATM-ka marka lacag lagala baxayo waxaa la geliyaa kaadhkan oo loo yaqaano Visa card kaadhkan waxaa samaysa shirkad ku taala Mareykanka laakiin markii shaqaalihii bangiga Cosmos ay hubiyeen nidaamyadoodii waxay arki waayeen wax ka baxsan macaamiishoodii caadiga ahayd nus saac kadib markii ay fariimihii soo bateen waxay go'aansadeen in shirkadda Visa ay xayirto dhammaan kaadhka bangiga balse ay u badbaadaan run ahaantii xayiraadaasi waxay ku yeelatay saameyn weyn iyo khasaare baaxad leh maalintii xigtay shirkadda Visa waxay la wadaagtay bangiga Cosmos list dhammaystiran kaasoo caddayn u ah lacagaha lala baxay ku dhowaad 12,000 oo goor ayaa lacag lagala baxay ATM-yo kala duwan oo ku yaala daafaha caalamka bangiga Cosmos ayaa khasaaray dhacdadan awgeed lacag gaadhaysa 14 milyan oo dollar dhacani wuxuu ahaa mid abaabulan oo khatartiisa wata burcadii falkan geysatay si aan looga shakiyin markii ay lacagaha la baxayeen waxay kala baxeen 28 wadan oo uu xarumo ku lahaa bangigaasi waxaana ka mid ahaa wadamada Mareykanka Ingiriiska Imaaraadka Carabta iyo Ruushka dhammaan lacagahana waxay la baxeen muddo 2 saacadood iyo 13 daqiiqo gudahooda dhacdadan markii dabagal lagu sameeyay waxaa soo baxay warar sheegaya kooxda falka geysatay inay ka soo jeedaan Kuuriyada Waqooyi dawladooduna la ogtahay laakiin intii aan la shaacin warkaas ayaa kooxda dambiilayaasha internetka ee dalka India gaar ahaan gobolka Maharashtra waxay kaamirada CCTV-da ka arkeen koox tobaneeye ah oo ku socda meelaha ATM-yadu ku yaalaan iyagoo isla markaana gelinaya kaadhar kadibna ka soo saaraya lacago kadibna ku ridaya boorsooyin ay wateen sarkaalkii baadhaya kiiskan wuxuu yidhi kamaan warqabin inay jiraan shabakad lacag dhacda oo sidan oo kale ah mid ka mid ah burcadda ayaa wuxuu watay aalad uu kula soconayo lacagaha lagala baxayo ATM-yada tiradeeda sidan waxaa yidhi sarkaalkii kiiska baadhay kadib muuqaaladii kaamirooyinka iyo xogihii ay ka heleen telefoonada dhacdadan waxaa loo xidhay 18 qof dhowr toddobaad markii ay ka soo wareegtay dhacdadaas dhammaantoodna waxay ku jiraan xabsiga waxayna sugayaan maxkamad Singi oo ahaa sarkaalkii kiiska baadhay wuxuu sheegay dadka dhacdadan loo xidhay inaysan ahayn burcad waaweyn ee ay jirto gacan iyaga ka sarreysa baadhayaashu waxay aaminsan yihiin in dhacdadan gacanta u weyn ay lahayd Kuuriyada Waqooyi waa dalka ugu saboolsan adduunka haddana qayb ka mid ah kheyraadkiisa xadidan waxaa loo isticmaalaa dhismaha hubka nukliyeerka qodobkan waxaa mamnuucaya golaha ammaanka qaramada midoobay sababtaa darteedna cunaqabatayn dhaqaale ayaa la saaray dalkan taasoo dalkan ka dhigtay mid ganacsigiisu xadidan yahay 11 sano ka hor markii uu xukunka qabtay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un waxa uu kormeeray olole lagu tijaabinayo hubka nukliyeerka tiraba 4 jeer ayaa hubkan la tijaabiyay iyo sidoo kale dhowr daandaansi oo lagu tijaabinayo gantaalada isaga kala goosha qaaradaha Mareykanka ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay adeegsanayso kooxo burcada si ay u hesho dhaqaale waxayna aaminsan yihiin kooxda lagu naanayso Lazarus inay yihiin unug ay maamusho hay'adda sirdoonka militariga ee Kuuriyada Waqooyi kooxdan ayaa markii ugu horeysay caan ka noqotay caalamka markii madaxweyne Barack Obama uu Kuuriyada Waqooyi ku eedeeyay inay jabsatay shabakadda kombiyuutarada ee Sony Pictures sanadkii 2014 sanadkii 2016 kooxdan ayaa sidoo kale isku dayday inay $1 bilyan oo dollar ka dhacdo bangiga dhexe ee Bangladesh balse dhammaan eedeymaha si adag ayay u beenisay Kuuriyada Waqooyi Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa ku qiyaasay burcadda internetka wax ku dhacda ee Kuuriyada Waqooyi jooga inay yihiin 7,000 oo qof oo loo tababaray inay internetka wax ku dhacaan balse ilaa hadda xog sheegaysa lama hayo inay dhacdadaasi ka dambeeyaan Kuuriyada Waqooyi waxaana dhacdadan xabsi ugu jira dad gaadhay 18 qof
waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalka fadlan haddii aad halkan nala soo gaadhay muuqaalka like noo saar mahadsanid